kulan ballaaran oo maanta si wada jira u qabteen maamulka gobolka Saraar kuwa degmada Caynaba culimadiinta gobolka iyo qaar kamid ah dhalinyarada gobolka Saraar ayaa waxay ku shaaciyeen tartan Quraanka Kariimka ama masaabiqo loo qabanayo ardayda kala duwan wax ka barata dhinaca Quraanka Kariimka. Tartanka Quraanka Kariimka ayaa waxa la qaban doonaa bisha barakeysan ee Ramadaan waxaana ay mas'uuliyiinta faahfaahin ka bixiyeen qaybaha kala duwan ee lagu tartami doono iyo inta cisho u socon doono waana kuwan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya. maanta halkan hawshan ku hayno waxa weeye tartanka quraanka malcaamadaha quraanka in lagu tartamo oo ardayda la dhiirigeliyo marka waxaan maaragtay halkan ka shaacinaya dadka khayrka jecel culimada cid walba inaanu tartanka qaban doono insha Allah taala 12 bisha Ramadaan aanay noqon doonto in laga faa'iideysto qarash maaragtay si loo dhiirigeliyo insha Allah taala madaxtooyada wax lagu bixiyaa garantii annana garantaanu bixin doonaa hadii si fiican aniga ku hadlaya afka dhalinyarada ee aqoonyahanka gobolka Saraar anigu waxaan runtii jecelahay in halkan baaq uga diro dhalinyarada gobolka Saraar meel kasta ay joogaan dhalinyarada aqoonyahanka ganacsatada shuyuukhda qurba joogta iyo qolqol joogtaba inay ka soo qayb qaataan arrimaha khayriga ee tartanka Quraanka Kariimka waayo hadeynaan xilli adag bayna soo maray abaarayna soo maray cudurayna soo maray waxaanu kaga baxsan karnaa kaliya wax weeye inaga khayrka u cararna in hasaban bishan Ramadaan in aynu weyneyno Quraanka Kariimka oo inaynu badino dhikriga Ilaahay qof kasta oo muslimana waxaan leenahay khayrka ka qayb qaado qof kasta wixii uu ku darsado waxaan u maleynayaa meel ka khayr badan oo gelin lahaa ma jirto marka waxaan meediyaha u marinayaa cid kasta oo muslina meel kasta ay joogaanba inay ka qayb qaataan tartanka Quraanka maanta waxaa jira oo laga hadlayaa in la bilaabi doono hadii Allah ka dhigo bisha Ramadaan tartankii Quraanka Kariimka ee gobolka Saraar ee ardayda malcaamadaha dhigta ay ku tartami lahaayeen meel kasta oo joogno nin waliba wuxuu ku darsado helaya Sheekh Maxamed oo ka dhawaajiyay wuxuu garantaanu bixinayna ardayga ugu lambar 1 ka noqda waan ku raacsanahay garandada iyo wax ka fiican bay la siiyo ardayga lambar 1 ka noqda si ardaydu u dhiirato anaka xilligeeyga wana la galbin jir laakiin maalin walba waxba isbedelaya ee maanta ninkii xiftiyay waa ka faa'iidada badan ee la leeyahay baawur baa lagu siinay waxaanu diyaar u nahay insha Allah Allah ina gaarsiiyay bishii barakeysan Ramadaan waxaana la isla gartay oo maanta aanu halkan ku go'aaminay in lagu tartamo Quraanka Kariimka insha Allah bidmillahi kariim waxaanu u soo magacawnay oo aanu isla garanay inaan 7 xubnood aanu u diyaar gareyno si ay arinta gacanta ugu hayso una diyaar gareyso imkaaniyaadka tartanka Quraanka iyo wixii loo baahan yahay waxaanu media marinaynaa oo nu sheegaynaa cid kasta oo islaam ah amba u dhalatay gobolkan ama ganacsato ha noqoto dhalinyaro ha noqoto mas'uuliyiin kale ha noqoto oo gobolka soo jeeda waxaan leenahay tartanka Quraanka ee khayr baa idinku jira ka soo qayb qaata insha Allah bidmillahi kariim oo aad ka qayb qaadan doontaan cid kasta oo wanka gasha amba lambarka labaad gashana insha Allah way heli doontaa sida loo sheegay abaalmarin wanaagsan bay heli doontaa jaamac boodacade warbaahinta qaranka Soomaaliland Caynaba.